guddiga isku xidhka beesha Ciise ee Somaliland ee lagu doortay Ajiri ayaa shalay toolo soo galay ismaamulka Dirdhabe waxayna soo dhaweyn diiran ay kala kulmeen ogaaska beesha Ciise ee waliba guddida Ayshaca. Guddiga ayaa waxay sheegeen in si fiican loo soo dhaweeyay isla markaana waxay u mahadnaqeen guud ahaanba dadkii isku abtirsanayeen sida diiran u soo dhaweeyay. Guddiga Ayshaca iyo waliba guddigani Ajiri lagu soo doortay oo isku dhafan ayaa waxay soo jeediyeen shir jaraa'id waxayna la hadleen wakaaladda wararka ee Sima. Ugu horreyntii waxaa hadlay odayihii ka socday Somaliland ee lagu soo doortay Ajiri waxayna sheegeen in shir uu qabsoomi doono bisha 8 kuudeeda isla markaana uu ka qabsoomi doono magaalada Cabdiqaadir. Shirkani ayaa waxaa ka soo qayb gali doona guud ahaanba beesha Ciise meel kasta oo ay dunida ka joogaan. Waxayna sheegeen in shirkii Ayshaca dib u dhacay oo 2 bilood dib loo dhigi doono shirkanna uu soo horay doono. Waa kuwan mid ka mid ah odayahaasi oo iyagu hadlaya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ilaahay baa mahad leh. Maanta waxaan joognaa Dirdhabe annagoo ah odayaashii ka yimid Somaliland shirkii jiray ee dhawaan halka ku qabsoomay guddidii lagu sameeyay ee isku xidhka beesha Ciise loogu magac daray baan nahay. waxaan halkan socdaal ku nimidnay annagoo u nimidnay ugaaska odayaasha iyo guddiga beelweynta Ciise ee Ayshaca halkan wala tashi ugu nimidnay. wala tashigu noo soo dhamaaday alxamdulillah. waxaan isku raacnay shirki jiri waxa ka soo baxay shir dambe inuu Ciisaha Somaliland ku yeesho shir dambe qabsado muddo 2 bilood kadib. halkan wala tashiga aanu nimidnay waxa la isku raacay inuu shirki la horeysiyo Somaliland oo lagu qabto halkii kolka hore jiri uu ka ahaa in Cabdiqaadir lagu qabto. shirkaasi bisha 8 kowdeeda ayaa la isku raacay inuu ka dhaco Cabdiqaadir. shirkaasi waxa loo qabanaya beelweynta Ciise meel kasta joogto inuu isku timaado Ethiopia, Djibouti, Somaliland iyo caalamka intii iman kartaba inay shirkaasi timaado. waan isku raacnay wala tashigii aan nimidnayna si fiican oo wanaagsan buu noogu dhacay. ugaaska iyo gandaha iyo guddidaba waxaan u jeedinaynaa mahadnaq soo dhaweyn wanaagsan ay noo fidiyeen iyo si walaalnimo noo soo dhaweeyeen iyo sidii ay noo qabteenna aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. waxaan maanta shirkan jiraadan wala qabanaynaa guddidii beelweynta Ciise ee Ayshaca oo wala ilaaminayno inaan shirkaasi beelweynta Ciise isku raacday in la qabto la horeysiyo shirkaasi. sidaa bayna hawshaasi noogu dhamaatay. ilaahay maadina weeyaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaa mikrofoonka qaatay Maxamed Aadan Bile gudoomiyaha guddida Ayshaca lagu doortay isaguna sheegay in ay isla qaateen guddigani inay la soo dedejiyo shirkani ka dhici doona magaalada Cabdiqaadir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. maanta way bishu 15 tahay bisha June. waxaan halkan shir wadajir ku qabanaynaa guddigii waftiga ahaa nooga yimid Somaliland ee shirkii jiri ku qabtay halka shirka guddigaas oo wada tashi noogu yimiday in maadaama ay iclaamiyeen in shir weyn oo beeshu ay isku timaado 2 bilood kadib ay ku go'aamiyeen in lagu qabto magaalada Cabdiqaadir. wada tashiga noogu yimaadeen ayaan ka wada hadalay. waan isku raacnay sidii awalba ay u go'aamiyeen in shir weyn lagu qabto ay leedahay Somaliland beesha ku nool Ciise ku nool Somaliland ay leedahay in lagu qabto magaalada Cabdiqaadir 2 bilood kadib bisha August kowdeeda. waan ku raacnay arintaas iyada ah waana arin mudan in mudnaanta la siiyo oo dhibaatooyin badan oo ka jira gobolkaas Somaliland oo beesha haysata si wax looga qabto ayaan aragnay inay mudnaanta in la siiyo mudnaanta in la siiyo ay tahay. marka waan ku raacnay ugaaska iyo odaya gandaha iyo guddigayagii waan isku wada raacnay arinta iyada in shirka la dardar geliyo oo sidii looga qayb gali lahaa in hawshiisa loo xamaan qaato
anaguna guddi ahaan waxaan ku shiray markii dee hawshaan eegnay aan miisaanay ugaaskan aan kala tashanay wadayaashiisa maadaama labadii shir ayna isqaadi kareen waxaan isla garanay in shirkii ay shaca aan dib u riixno muddo 2 bilood ah ayaan garanay oo markaa in shirkan mudnaanta la siiyo weyn ee Soomaaliland ka dhacaya ka kalena markaa laga soo baxo waa la ka dhigo hawshiisa la galo ayaan isku raacnay in sidaasaan dee iclaaminayna oo nu sheegaynaa beeshu meel ay joogtaba haday tahay Soomaaliland iyo Itoobiya iyo maaragtay Djibouti iyo qurbahaba meel ay joogaanba in shirka laga soo qayb galo oo sidii midnimo loo muujin lahaa ee ragga la isu garab taagi lahaa looga shaqeeyo anagu dee hawsheedii anagoo tii galbeedka wadna oo sideedii ay u socoto galbeedka hawshiisii ayaan dee haddana ay mudnaan haddana dee qasab tahay in iyadna laga qayb qaato taa bariga ka socota si midnaantii dee beesha loo muujiyo inta inaan dee idiin sheegno un baan maanta ugu nimidnay hawshaasina saasay ku dhammaatay wixii kale waxa la galayaa hadda hawlgal ah ee qabanqaabadii shirka iyo hawlihii looga baahnaa xagga logisticska iyo maaragtay taakulaynta si looga qayb gali lahaa iyo hawshaasi loo gali lahaa un baa imika hadeed haduu la ka dhiga la galaya inta un baan iclaaminaynaa waanad mahadsantihiin inaad ka soo qayb gashaan waan rajaynaynaa wassalaamu calaykum waxa kale oo iyagu halkaas ka hadlay odihii guddiga ahaa ee ka socday Soomaaliland waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sidatan bismillaah alxamdulillaah sallallahu ala rasuulillah marka hore waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastoo joogta caalamka marka labaadna beesha ciise iyadana salaama u jeedinaya annagu waxaan ka mid ahayn guddigii loo xilsaaray jiri shirki ka soo baxay guddiga ka soo baxay ee loo saaray isku xirka ciise marka insha Allah hawshii baan galnay sidii baan tagnay ogaaskii iyo gandihii iyo guddigii ay shaca ee isku xirka ciise ahaa intaba waa la kulanay si fiican bay noo soo dhaweeyeen Ilaahay mahadiis waana uga mahadnaqaynaa uga mahad celinaynaa imankana waxa weeyaan inaan iclaamino in ciisuhu wax mid uu yahay waan isku xidhmay marka nin waliba shirkana waxa weeyaan shirkii dambe jiri ku qabanay inuu shirka kale oo weyn dhalo ayaan Cabdilqaadir la iskugu imanayaa bisha 8 marka ka Soomaaliland joogana waxa weeye gogolig baa laga doonayaa iyo dadaal ka kalena waxa weeye inuu ciiso wax mid yahay uu soo dhaweeyo isku yimaado insha Allah sidaasaan waxa weeyaan ku soo khatimaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh